waa mid ka mid ah boqortooyada xayawaanka bahda lafdhabarleyda gaar ahaana bahweynta naasleyda. waxa uu ka tirsan yahay dugaagga hilib cunka ah qoyska weyn ee waraabaha. afka cilmiga sayniska waxaa loogu yeedhaa hayna. asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa bariga iyo waqooyiga afrika, bariga dhexe iyo dhulweynaha hindiya. afkeenna hooye waxaynu u naqaanaa dhidar ama saweere. xayawaankani waxa uu caan ku yahay ama bahda kale ee qoyska waraabayaasha uu kaga duwan yahay shaashka ama bulbusha kaga taala dhabarka ilaa iyo dibka dambe, taasoo ah dhagoor aad u weyn. dhidarku waxa uu leeyahay 40 hidaside. culayska jidhkiisu waxa uu gaadhaa 22 ilaa 55 kilogram, halka uu dherarkiisuna gaadho 85 ilaa 130 sentimitir. dhidarka cimrigiisu waxa uu gaadhaa 10 ilaa 12 sano. sidoo kale waxa uu leeyahay 34 ilkood, badanaa waxa uu wax quutaa habeenkii. heerkulka jidhkiisu waxa uu gaadhaa 31 ilaa 37 digrii. sidka dhidarku waxa uu u dhexeeyaa 90 ilaa 92 maalmood. waxa uu dhalaa 4 ilmood, kuwaasi oo ku qaangaadha 2 ilaa 3 sano. dhidarku waxa uu saacaddii jari karaa 50 kilomitir. waxa uu ka mid yahay xayawaanada leh dhiigga diiran iyo xayawaanada halcalooleyda ah. dhidarku waxa uu ku nool yahay meelaha qaliil xigeenka saxaraha ah, xeebaha iyo dhulka buuraleyda ah. badanaa waxa uu u nool yahay qoys. waxa uu ka mid yahay xayawaanada quuta bakhtiga. sidoo kale waxa uu cunaa waxyaabaha ka soo jeeda dhirta iyo xayawaanka. dhidarku waxa uu ka mid yahay xayawaanada dadqaadka ah, kuwaasoo cuna hilibka dadka. ugu dambayn, waxa uu ka mid yahay 4 nooc ee loo yaqaano waraabaha guud ahaan iyo noolayaasha leh 5 farood ee yaryar.